كوسلو مركا ugu horeysa telefishinka SBC aad baan ku mahadcelinayaa waan dhawahay qaar kamid ah baarlamaanku waxa uu qabtay kalfadhigaas waxaad sheegteen in ay xilka kaga qaadeen madaxweyne ku-xigeenka Cabdul Cagawle maxay tahay sababta aad xilligan xilka uga qaadeen madaxweyne ku-xigeenka mase jira qodob dastuuri aad u adeegsateen xilka qaadistiisa bismillaahir rahmaanir rahiim way jirtaa bisha labadeedii inaan kalfadhigayagii caadiga ahaa furanay isla markaana 11 xubnood oo kamid ah golaha baarlamaanka ay keeneen mooshin lidku ah madaxweynaha ku-xigeenka qodobadii ku qornaa dastuuriga ahaa waxaa kamid ahaa in madaxweyne ku-xigeenku uu qaatumo dalka qaatumo ka baxay 24 December uuna sanadkii hore uuna ku soo noqday 31 July awoodda uu siinayo waqtiga uu siinayo dastuurku inuu ka maqnaan karana waa 45 casho oo dheeri wuxuu maqan yahay 6 bilood iyo 7 bilood iyo ziyaado maqnaa markaa waa gartay sidaasna qodobkaasi kamid buu ahaa waxaa kamid ahaa mar hore oo uu magacaabay wasiir uu isagu magacaabay iyo wasaarad aanu awood u lahayn oo taasina ku takriifal bay ahayd wuxuu caadaystay oo dhaqan ka dhigtay inuu la soo dagaal galo dadka mucaaradka ku ah maamulkiisa isagoo magacii iyo taakalkii xukuumadda khaatimo wata qodobo badan oo caynkaas baarlamaanku wuxuu u gacan taagay in uu kalsoonida kala noqdo iyo in kale xubnaha golaha fadhiyay 22 xubnood bay ahaayeen baarlamaanka marka baarlamaanka guudna uu yahay 32 18 kamid ah wuxuudaysay in xilka laga qaado qaar kamid ah xildhibaanada oo sidoo kale taabacsan madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxay sheegeen in kalfadhi qabteen oo ay xilkeeda ka qaadeen adigoo ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweyne Cali Khaliif sidee u aragtaa adiga qudhaad arinta baarlamaanka iyagu laba kooran badna buuxiyo oo xilka lagaga wada qaadi karo waa 32 xubnood baarlamaanka iyagu 22 kamid ah baa kalfadhiga fadhiyay shir gudoonkii baarlamaanka fadhiyay cid kale oo shil qaban karta oo meel joogtay ma jirto waxba kama jiraan weeye 5 shakhsi oo kamid ahaa xildhibaanada oo xagga madaxweyne ku-xigeenka raacay hadii bedelkeeda leeyahay markii shirka loo soo fadhiistay ka baxay Allahu musta'an iyaga laftooda ama diiday sameeyeen kalfadhigii baarlamaanka ka baxeen waxay la soo dagaal galeen wax lidku ah maamulkii khaatimo iyagana waad ka wareysaa maalintii ku xigtay oo shalay tahay yaa laga qaaday xasaanadii baarlamaannimo oo qodob kamid ah qodobada lagu waayo shuruudaha lagu waayo xildhibaannimada hadduu qofku abuuro kooxaysi isku dir guruubeysi iyo waxyaabaha kala jabinaya ummadda reer khaatimo yaa loo adeegsaday sidaasaana xilka lagaga qaaday cid kale oo deeshir guddoominaysay ilaanaha guddoomiyihii ah guddoomiye ku-xigeenadiina waa joogeen cidda kale ee anigu shirka qaban karaysa ma jirto waa ushaasina waxa weeye golihii deegaanka buuhoodle yaa lasoo farfarisiiyey meesha iyo wiilal qaad loo qaaday ma garanayo halkaasi waa hawl aan yani ansax ahayn oo jirin wax ka jiraana ma jiraan waa gudoomiye sidaan la socono wararka warbaahintan aan ka daawanay waxaa shirka gudoominaya gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka shirtag ninka lagu magacaabo sidoo kale xildhibaano 22 sida ay sheegeen baa meesha fadhiyay oo kooran bay ahaayeen labadiina qolo keebaa la oranayaa muu sheegaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka khaatimo waad ka helaysaa YouTube-ka Cabdikariin Askar Jaamac baa la yiraahdaa mudane shirtag xildhibaan shirtag waxaa xilka gudoomiye ku-xigeenimada labaad lagaga qaaday balle cad meesha la yiraahdo muddo sanad iyo siyaado ah uu ka sii maqnaa gartay dhawaan wada hadallo ayaad la furteen Somaliland laba jeer ayay dib u dhaceen madaxweyne Cali Khaliif wuxuu sheegay inaad ka baxaysaan hadii maalin dib loo dhigo laba jeerna dib baa loo dhigay cid hadal haysaana wali ma jirto go'aankiina maxay iska bedelay idinka wada hadallada Somaliland iyo Khaatimo muddo badan bay soo socdeen meel fiican way gaareen kaliya shir baa naga baaqday shirkaasna sababtiisa waxaa lahaa maamulka Somaliland xubnaha kamid ah baa lahaa go'aan baan u qaadanay aanu u dhannahay oo ah bisha 10keeda June inuu dhaco in shiraan isugu nimaadna burco intii aanu dhicin bay keegood iyagoo
bayaan soo saareen ama warbaahinta ka hadleen oo ay sheegeen inay dib u dhigeen awoodna uma laha inay keligood dib u dhigaan waa in hadduu laba dhinac yahay labada dhinac iska raacsan tahay oo iska waafaqda oo ka wada hadasha oo dhibaata waaba iman kartaa ama dhinac waa sheegan karaa lasiimadoo la sheego markaasna go-aan dambe la qaabto laakiin cid gaara oo iyadu markay doontana go-aan qaadan karaysa markay doontana furin karaysaa ma jirto sidaas darteed waxaanu kala wada hadalnay oo ay nagala soo hadleen arrintaas ay kala tahay oo ay khalad xaggooda tahay kadibna waxaanu ka dhignay in ay annaga de ay nagala hadlin warbaahin bay mariyeen ay apology iyo raaligelin mariyeen warbaahinta waana laga sugaya insha allah bismillahi karim madaxweyne cali khaliif markii wada hadallada ka furmeen caynaba ay tageen isagii waftu hogaaminayo waad ka soo horjeesatay oo subaxnimadii ayaa shirsi aad qabatay oo aad sheegtay inay tahay khiyaamo qaran misna dib baad ka taageertay adiga qudhaadu labada jeer baad saxsanay labada jeer markii dambaan saxsanaa marka horena bulshada deegaanka joogta waad ogtahay dadka colaamo badan baa soo maray dhibaatooyin badan baa soo maray wax badan baa aada iyo aada cidii la yidhahdo somaliland bay aaday ama aragtay baa dhibaato badan ka taagnayd markii ummadii kacday oo weliba dad maamulka somaliland laftiisa iyo ka puntland ba ku jira ay adeeg badan ka galeen isku dhax baan ka baqay aada baan nabadgelya darteed baan hadalkii hore u yiri kii dambe ee aan sheegana kii sharciga ahaa buu ahaa gudoomiye meel la odhan karin wada hadallada habeenka caynaba la tegay qayb kamaad ahayn markii dambe waxaa lagugu qanciyey inaad ka qayb gashid oo sida dhacdayba aad tagtay wada hadalladii ka dhacay Ethiopia miyaa la odhan karin adiga qudhaadu dantaada ayaad ka dhex aragtay kama arkin dan ii gaara oo ku xidhnayd ma jirto danta gaar inaan guud ka hormariyaana ku dhaartay golayna ahayd waa dhammayn waanu u codaynay golahayaga baarlamaanka iyo golaha wasaaradaba waanu ka wada hadalnay madaxweynaha waxaanu goleer ku siinay inuu wada hadal galo waan gartay maamulka khaatimada dastuurkiisa waxaa ka mid ah in la adkeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ayna muqadas tahay Somaliland baad wada hadal la furteen ma idinka ayaa ka tanaasulay midnimadii ummadda Soomaaliyeed mise Somaliland baa ka tanaasulay goonistaagii Soomaaliyeed ay ka gooday marka horeysa waa runtahay qodobada ee dastuuriga mid keliya ma aha dhowr iyo toban bay ku qoran tahay in ummadda ka khaatimo ay ka mid tahay maamulka ummadda Soomaaliyeed in ay midnimada ummadda Soomaaliyeed u dhisan tahay oo loo aasaasay sida ay tahay annagu hadda wadahadal baan ku jiraa dana laga dhexeeyo aan Soomaaliba loo helin baa jirta oo dil ah oo dhaca dhulkayga ay haystaan waxaan aada iyo aada uga yaabanahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba cid waliba cidda ku xigta way la hadlaysaa ama dawladda dhexe ha ahaato ama caalamka ha ahaatee waan gartay gudoomiye garaadka guud deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn Garaad Jaamac Garaad Cali wada hadalladii u dambeeyay go'aamadii ka soo baxay waa uu ka hadlay waa una qaadacay wuxuuna sheegay inaysan u cutamin dadka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ismada badankeedii waa idinka soo horjeedaan mudaharaada ayaa ka dhacay Buuhoodle la idinka soo horjeedo shalay u dambeysay reer Buuhoodle waxay taageereen madaxweyne ku-xigeenka miyaa la odhan karin idinka qudhiina ayaa u baahan inaad iscasishaan oo aad kuraasta banaysaan marka u horeysa warna uu ka hadlay golayaal bay khaatimo ka kooban tahay 3 golo ah waa golaha sare dhaqanka golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka mid waliba shaqeyleeda wixii masiiri ah ee dalka iyo dhulka iyo dadka ku saabsan ansixintooda xukuumaddu wada hadallo way soo geli kartaa wax kastoo heshiis ay soo basooray waxay keenaysaa baarlamaanka wixii masiiri ana ansixintooda waxaa leh golaha sare dhaqanka iyo golaha baarlamaanka waxaa tahay gudoomiyihii baarlamaanka tahay waxaa in badan saan u wegeen muddooyinka u dambeysay uu khilaaf u dhexeeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa adiguna gudoomiyihii baarlamaanka tahay waxaad la safatay madaxweynihii miyaan ahay inaad dhex u noqotid madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa miyaan la odhan karin waxaad jebisay qodob dastuuriya aad cid gaara la safatay waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka haddii khilaaf dhex maro marna si sharci ah baa loogu marna si maslaxada anigu lama safan madaxweynaha waxaan la saftay sharciga saddex jeer oo horena waxaan ku keenay apology markii uu dembiga yeeshay buu apology bixiyey madaxweyne ku-xigeenka iyo dembiyada ka dhacay khaatimada waxaan aada iyo aada isleeyahay waxay ugu badan yihiin dhinaca aada iyo aadna waxaan isaga xil saaray in aan dhibaato maadaama maamulkaygu xurta yahay maadaama asruufo badan nagu xeeran yihiin
inaan hadalkayga soo bixin. heshiiska Somaliland la galaysaan muxuu yahay muxuu noqon karaa heshiiska Somaliland la galaysaan ma inaad ku biirtaan ma in Somaliland ay deegaanadii ka baxaan wali heshiiska dadka madow badan ba ka jira muxuu noqon karaa heshiiska rasmiga ah Somaliland la gali kartaan ujeedadiisu sanadkan anagu danta aan leenahay waxa weeye dhibaatooyinkana dhex yaala iyo duruufaha nagu xeeran wada hadallo dad bay naga haystaan dad baa dhintay dad baa ay laayeen xirxireen wax kasta ku sameeyeen waxaanu doonaynaa sabab ilmaha iyaga yar maanta agoonka ah ama hooyada asayasida ee dhinac walba joogta inaanu ubadka dambe ugu talino nabadgelyo iyo caafimaad iyo deganaansho